xaqiiqooyin ku saabsan jenaraal maxamed siyaad barre annagoo eegi doono qaabkuu ciidanka ku soo galay, qaabkuu talada soomaaliya ku qabsaday, markii uu talada qabtay horumaradii uu gaarsiiyey soomaaliya iyo weliba tacadiyadii uu ka geystay soomaaliya. inta aanan barnaamijka u gadgelin, fadlan like. jenaraal maxamed siyaad barre waa madaxweynihii saddexaad ee soomaaliya. talada waxa uu kula wareegay qaab military 21 Oktoobar 1969. wakhtigaasi ka hor waxa uu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. maxamed siyaad barre waxa uu madaxweynaha Soomaaliya u soo ahaa 1969 ilaa 1991 oo ka dhigan in uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya 21 sano oo xiriir ah. ilaa iyo dhalinyaronimadiisii ayuu Siyaad soo ahaa ciidan, iyada oo ahayd markii ugu horreysay oo ciidan ka qorto magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan 1930. marka laga reebo waqti yar oo 1940 ku beegneed oo 2 sano ka badnayn uu ka maqnaa ciidanka, Siyaad waxa uu intii kale noloshiisa ku dhamaystay ciidanimo ilaa ay ugu dambeyn uu afgambi ku qabsado Soomaaliya 1969 bishii Oktoobar 21 kadib 5 maalin markii la dilay madaxweynihii sida dimuqraadiga ah ee loo doortay eebaha oo naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Siyaad Barre waxa uu ku dhashay deegaan ka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya oo la yiraahdo Shilaabo. jenaraal maxamed siyaad barre waxa uu ciidan u soo ahaa gumaystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska labaduba. waqtigaasi waxa uu soo qaatay tababaro ciidan oo gudaha iyo banaankaba ah, gaar ahaan dalalka Talyaaniga iyo Kenya. waxaana khibradaasi u helay darteed uu ku helay dallacsiin dhinaca darajada ciidanka ah. jagadii ugu weyneed ee ugu horreysay ee loo magacaabay waxa ay ahayd gaashaanle buuxda, iyadoo markaasna loo magacaabay taliyaha booliska gobolka Banaadir waqti u dhow xilliyadii xornimada Soomaaliya. markii la sameeyay ciidamada booliska Soomaaliya, Siyaad waxa uu gaaray darajada sareeya guute bilowgii 1960kiina. markii la sameeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Siyaad Barre waxa uu noqday ku-xigeenka taliyaha ciidamadaasi, iyadoo bartamihii 1960kiina uu noqday taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kadib markii uu geeriyooday taliyihii ciidamada sareeyagaas Allah u naxariistay Daa'uud Cabdullaahi Xirsi 1965. Siyaad markaasi waxa uu haystay darajada sareeyagaas. jenaraal maxamed siyaad barre eebaha u naxariistay waxa uu 1969kii xoog ku murugsaday taladii Soomaaliya kadib markii la dilay madaxweynihii sida sharciga ah u hayay talada Soomaaliya waqtigaasi Cabdirashiid Cali Sharmaarke. 21 sano oo xukun ciidan ah ayuu maxamed siyaad barre geliyay Soomaaliya, waxaana isaga oo ah madaxweynaha Soomaaliya uu talada Soomaaliya hayay intii u dhaxaysay 21 Oktoobar 1969 ilaa 26 Janaayo 1991. markii ay jabhado ka soo baxeen Soomaaliya ayaa xukunkii laga tuuray taliskii militariga ahaa. Siyaad Barre waxa uu ka cararay dalka, waxa uuna markii dambe January 1995 uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria. haddii aan eegno
qaabkii waxbarashadiisa. 1940kii Maxamed Siyaad Barre waxa uu waxbarasho dhinaca ciidanka ah kusoo qaatay dalka Kenya, halkaasi uu u diray gumeystihii Ingiriiska ee qabsaday Soomaaliya 1940kii. 1949kii Maxamed Siyaad Barre waxa uu waxbarasho abaalmarin ah ka helay dalka Talyaaniga, kulliyad ku taala oo ciidanka booliska lagu tababaro, kadib markii ay dalalkii awoodda badnaa ee waqtigaasi isku raaceen in Talyaanigu gaarsiiyo Soomaaliya xornimo. bilowgii 1950kii Jenaraal Maxamed Siyaad Barre waxa uu Muqdisho ku qaatay tababar kale oo dheeri ah oo dhinaca siyaasadda iyo maamulka ah. 1936 ayuu Jenaraal Maxamed Siyaad Barre markii ugu horreysay ka qortay askarnimo Talyaanigii gumeystaha ahaa ee waagaas joogay degmada Beledweyne oo ah xarunta gobolka Hiiraan. halkaasi waxa uu ka galay dagaalkii dhex maray Itoobiya iyo Talyaaniga. isla waqtigaasi mar aan ka fogeyn ayaa looga dhigay horjooge maxaabiis loogu qabsaday Itoobiyaanka dagaalkii u dhexeeyay Talyaaniga iyo Itoobiya, kuwaas oo ka shaqeynayay warshada cusbada ama milixda soo saari jirtay oo ku taalay meesha loo yaqaan Xafuun. isla waqtigaas markii Siyaad uu ku dhacay xanuun ayaa loo bedelay Muqdisho, hase ahaatee waxyar kadib ayuu dib ugu noqday Galgaduud oo loo soo sheegay in uu ku dhintay adeerkii ugu dambeeyay ee Jaamac Barre, halkaasi uu muddo 2 sano ah ku maqnaa. bartamihii 1950kii ayuu Maxamed Siyaad Barre noqday askarigii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee noqday sarkaal buuxa, markaas uu noqday taliyaha booliska gobolka Banaadir. bilowgii markii la sameeyay ciidamadii booliska Soomaaliya, Siyaad waxa uu gaaray darajada sareeyo guuto. 1960kii markii la dhisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Jenaraal Maxamed Siyaad Barre waxa uu noqday taliyihii ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. bartamihii 1960kii markii uu dhintay taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Jenaraal Daa'uud Cabdullaahi Xirsi, ayaa Siyaad Barre waxa uu noqday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. 1969kii bishii Oktoobar 2020 Siyaad Barre waxa uu xoog ku muruqsaday taladii Soomaaliya, waxaana isagoo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uu isku magacaabay in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. isla waqtigaas Siyaad iyo kooxdiisii oo ciidanka wada ahaayeen sida Jenaraal Gabayre Kariye waxa ay sameyseen xisbi la oran jiray Golaha Kacaanka Soomaaliya. isla waqtigaas xisbigaasi waxa uu kala diray golayaashii dowladda sida baarlamaanka iyo garsoorka. taladii uu dhanna Siyaad waxa uu gacanta u soo geliyay ciidanka. 1970kii Siyaad Barre waxa uu ku guuleystay in uu Soomaaliya ku daro ururo goboleedyo iyo kuwo caalami ah sida Jaamacadda Carabta oo markii ugu horreysay 1974 ay Soomaaliya ka mid noqotay. intii uu Jenaraal Maxamed Siyaad Barre Soomaaliya ka ahaa madaxweyne, waxa uu gaarsiiyay Soomaaliya horumarro waaweyn oo u badnaa sida dhinacyada dhismaha iyo waxbarashada maadiga ah. 1972 Siyaad Barre waxa uu ku guuleystay in ay dowladdiisa noqoto tii ugu horreysay ee qorta farta Soomaaliga. 1974 ilaa 75 waxa Maxamed Siyaad Barre ay dowladdiisu dalka ka bilowday ololihii waxbarashada lagu barayo akhriska iyo qoraalka. Siyaad Barre waxa uu dalka geliyay dagaal u dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya. 1988 Siyaad waxa ay xukuumaddiisa duqeysay magaalada Hargeysa ee gobolada. 1991 Siyaad waxa xukunka ka tuuray jabhado, waxaana ka mid ah jabhadahaasi USC. halkaas ayaana lagu soo afjaray 20 sano uu maamulayay Soomaaliya laga bilaabo 20 Oktoobar 1969 ilaa 1991. 21 January 1995 ayaa Allah u naxariistay Jenaraal Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku dhintay magaalada Lagos ee dalka Nigeria isagoo 80 jir ah.